Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada casharkeena. Casharkeena hore waxaa kusoo baranay input function ayaa kusoo baranay. Casharkan maanta waxaan ku baran doonaa how to use conditional statement. Sida loo isticmaalaa conditional statement maxaa la dhahaa. Conditional statementiga marka laga hadlaayo Python marka la joogo waa essential part waaye of programming. Waa qayb aas ah oo essential laga maarmaan ah marka la joogo programming. weliba Python marka lasii joogo waa qayb essential. Haddaba qaybtan conditional statementiga waxay ku ogolaanaysaa in aad samaysid go'aaman adigoo ku salaynaya markaas value-ga qiimaha aad variable-ka ku haysatid si markaas ama result-ga aad rabtid inay soo baxdo kaasoo marka aad isbarbar dhigaysid. Marka hore waxaa soo qaadanay variable soo qaadanay marka la sheegayo marka programming wuxuu leeyahay wax loo yaqaan control flow. Meel ayuu kasoo bilowdaa programka, meel ayuuna ku dhamaadaa. Marka habkaas in la sameeyo marka la rabo waxaa loo baahan yahay conditional statement. Su'aalaha kale hadda inta badan waxaad su'aal ku aragnaa real problemka marka password la gelinayo. Su'aalahan marka hore waxaa la sameeyaa passwordkii in la keydiyo qofka uu password samaysto iyo username. Kadib marka log in la sameynayo waxaa la sameeyaa in userka la geliyo kadib in la checkin oo la dhaho haddii userkan uu dhigmo userkii hore la sameeyey waa sax. Haddii passwordkan uu dhigmo passwordkii hore la sameeyey waa sax. Kadib markaas in la sameeyo shaashada kale loo gudbiyo qofka. Haddiisan qalad u dhacnay in la dhaho usernamekii passwordka waa qalad. Habka noocaas markuu programka u shaqeynayo ayaa waxaa la dhahaa conditional statement. Marka in la siiyo condition in la siiyo oo shuruudo in la siiyo kadib markaasi loo qaado tallaabo kale loo qaado. Marka conditional statement la isticmaalayo waxaa laga maarmaan in la isticmaalo wax loo yaqaan comparison in la isticmaalo isbarbardhig ayadoo la isbarbardhigayo value-ga hore iyo value-ga kale ayadoo la isbarbardhigayo. Su'aalahan kale intan ayaa caana oo programming kaste ku jira conditional statementiga. Midka koowaad waxaa la dhahaa equal calaamadan la isticmaalaa. Haddaa hore u arki jirta xisaabta in hal equal la isticmaalo marka programming la joogo shaygan wuu loo egyahay marka la dhahayo laba equal ayaa la isticmaalaa. Haddii hal caba noqoto waa variable assignment hore usoo sheegnay. Non equal marka la rabo in la dhaho shaygan lama eko waxaa la isticmaalaa calaamadan iyo sidoo kale calaamadan equalka. Sidoo kale less than marka la dhaho shaygan wuu ka yar yahay shaygan kale waxaa la isticmaalaa calaamadan loo yaqaan less than. Marka la dhaho shaygan wuu ka weyn yahay wuu ka yar yahay less than or am equal to shaygan A-ga ah wuxuu ka yar yahay amaba la eg yahay B. Marna waxaa loo fiirinaya inuu ka yar yahay marna waxaa loo fiirinaya inuu la eg yahay. Laba condition isku dhex jira. Shaygan kale asana waxaa la isticmaalaa comparationkan waxaa loo isticmaalaa greater than shaygan markuu ka weyn yahay shaygan. Halka midka kalena uu yahay greater than or am equal to markuu shaygan inuu ka weynaan karo shaygan sidoo kale amaba la ekaa karo shaygan. Laba condition ayaa loo fiiri doonaa. Marka intan waa common comparison Python isticmaasho halka luqadaha kalena inta badan ay ka sameeyeen calaamadahan. Waxaa arkaynaa marka wax loo yaqaano indentation maxaa la marka inta aadan sameyn marka conditional statement marka Python loo isticmaalaysid waxaa muhiim inaad fahamtid wax loo yaqaano indentation marka laga hadlaayo waxaa waaye in la dhigo calaamada space wax loo yaqaano in la dhigo white space in la dhigo at the beginning bilowga of the line marka rabtid oo condition waa ina marka hore space laga soo durkaa koodkaaga kan leenkiisa si loo xaqiijiyo markaas ama loo qeexo scope-ka korkaaga ama meesha uu ku scope gareysan yahay. Marka intaan Python ayay qaas u tahay marka la fiiriyo marka other programming languageska sida tusaalahan kale JavaScript ama luqadaha kale ama Java inta badan waxay isticmaalaan wax loo yaqaan curly bracket ay isticmaalaan oo calaamadaha brackets ay isticmaalaan si ay markaas u cadeeyaan markaas in waxaan ay conditions oo marka if la isticmaalayo waxaa la isticmaalaya brackets ayaa la isticmaalaa JavaScript. Laakiin marka Python la joogo haddii aadan indentation isticmaalin tusaalahan kale hadda meeshan laba variable noo qoran waa indentation malaha waxa laga wadaa indentation space ma soo durksana. Marka if la isticmaalayo oo condition la isticmaalayo haddii aad space aadan kasoo durkin waxay noqonaysaa natiijadaada inaad heshid errors. Dadka inta badan Python ku cusub oo ama luqadaha kale programmingka kasoo guuraya sida JavaScript waxay qalad badan ku dhacaan oo errors badan usoo baxa indentationka inay tiraan.
inta badan Python ayada automatic ku sameynaysa halkan aad joogno if dhahno printiga marka waxa la rabaa in uu hoos yimaado kan maadaama luqadaha kale halkan ay ka furmaan bracket uu ka furmo oo bracket halkan ka xirmo Python ma laha ujeedaan linka waa madax banaaya linkana waa madax banaaya saasay taana way soo yimaadaan marka waxaa la rabaa printingka in halkan oo kale uu dhaco oo kasoo durgsanaado indentation markaas ayuu aqoonsanaya haddii laakiin isku barbar yaalan indentation ayaa kaa qaldan waxaana heli doontaa errors ayaa heli doontaa waan arki doonaa real practical waxaan ku hormarinaa maanta marka condition statement Python waxa loo yaqaan if statement waxaa jira dhowr condition ayaa jira if else iyo life ayaa jirto marka casharkana kale wuxuu ku bilaabanayaa if statement if statement marka laga hadlaayo waa simplicity form waaye waa habka ugu fudud ee conditional statement Python la isticmaalo habka marka waxaa la execute hadaa maqashid waa fulin waa ama waa rangareen ama waxaan in la fuliyo waxaa loo yaqaanaa execute marka waxaa la executeenayaa block of code xirmo code ah ayaa la rangareenayaa ama la fulinayaa si markaas loo siiyo markaa conditionkaas marka noqonayo true haddii marka if la isticmaalayo conditionka markuu true noqdo ayaa codekaas la fulinaya waa sida data dhigana haddii passwordka uu la egyahay noocaas talaabadan qaad hadduu saxan yahay ama soo gaar tusaalahan qalafkan da'diisa hadday ka weyn tahay intaas talaabadan qaad markaasaa la fulinaya koodkan ilaa waxaas run noqdaan koodkan lama rangareen doono marka if statement saas u shaqeysaa waa kana marka syntaxka marka Python joogo if condition ayaa la isticmaalaa if waa keywordka la isticmaalaya halkan marka conditionkii waa la dhigaya halkan calaamadda marka labada dhibcood ayaa lagu soo xiraya halkii la isticmaalaha curly bracket la fur lahaa Python laba dhibcood ayaa la isticmaalaa haddii marka conditionkan uu true noqdo this block will be execute blockan hoos imaanaya ee koodka waa la fulin doonaa markaas hadduu laakiin false noqdo waxay noqon doontaa in tallaabo kale la adeegsado oo lama fulin doono tusaalahan hadda uu soo qaadanayna waxaa dhahnay halkan variable age ayaa halkan u yaalo valuegiis waxa waaye 20 marka waxaa rabnaa inaa aan ku sameyno condition inaan shuruud ku xirno waxaa leenahay markaas haddii ageka halkan u yaalo variableka u yeeranaynaa uu ka weyn yahay waxaa isticmaalana hadda comparison operators hadda aan soo sheegayna haddii uu ka weyn yahay ama la eg yahay 15 halkan marka waxay noqonaysaa 20 waxay ka weyn tahay ama la eg tahay 15 waxaa laba condition waa 20 hadda way ka weyn tahay waa sax laakiin tan kale lama eg waxaa la qaadan doonaa inay 20 ka weyn tahay la qaadan doonaa marka waa true marka hadda koodkan kadib marka waxaa lasoo daawacaya printy waad soomi kartaa laakiin haddii halkan aan gelo 24 koodkan lama soo qaadan doono oo waa laga boodi doonaa marka identification sheegin waa kana marka halkan qortid calaamadda enter data halkan ka bilaabay laakiin haddii aad tirtid oo halkan aad geysay printingka errors ayaa ku soo baxay aan tagna marka casharkeena practicalka if condition ayaan dhowr example halkan ka diyaarinay hadda example hadda aan sameeyno waa kana example 1 waaye waxaan idin soo dhaweeyo saa u aragtaan okay marka hadda example 1 waa kana marka example 1 ayaa halkan joognaa waxaa halkan noo qoran marka age-ka inuu 17 yahay marka halkan waxaa jeega garanaynaa if age greater than 25 marka waxaa rabnaa in halkan marka uu ka weyn yahay 25 hadda u joogno saacadii 27 way ka weyn tahay 25 waa sax halkan la soo daawaci doonaa haddaan ran gareyno fiiri koodkan haddaan ran gareyno waa la soo daawacay waxaa la soo daawacay waa soomi kartaa waa la fuliyey koodkan laakiin hadda halkan aan indentationka aan tiro oo halkaas aan la ekeysiiyo durba waxaa imaanaysa errors imaanaya haddaan dul garan gareyno waxaa noo heli doona errors ka dhici doona waxaan uga haystaa errorka waxaa indentation error ayaa dhacay indentation waxaa waaye waa in blogga ka dambeeya if waa inuu space uu lahaaya bloggan if ka dambeeya waa inuu space lahaadaa markaas wuu shaqeyn doonaa marka hadda ran gareyno waa kaas wuu shaqeey marka indentation waxaas laa iska fiiri marka conditionkan waa kan hadda comparationkan aan halkan hadan equal aan ahno tusaalahan hadda waa isla sidii natiijada soo baxaysaa waxaa markasta horeeyo ka weyn sababtoo ka weyn hadaa la ay gelino fiiri 15 hadaan ahno hadda 15 kama weyn laakiin waxaa la qaadan doonaa inay la eg tahay fiirino waa kaas u soomi kartaa laakiin calaamadda equal ta ka saaro oo ka weyn aan dhaho waxa lama soo daawici doono sababtoo 15 kama weyno
koodka marka waa laga booday meeshan oo lama soo daabici doono. marka calaamadaas comparison waa noocaas u shaqeysaa. marka shay aad rabto inaad barbar dhigto shayga kale sidoo kale aad la ekeysiisa ayaa la isticmaalaa. sidoo kale waxaa samayn karnaa in aan halka userka aan soo gelino. hadda anaga hore qiimaha u siinay cashirka hore waxaa kusoo qaadanay input function aan isticmaalinaa. marka waxaa leenahay maadaama tirada isticmaalno ay integer tahay waa inaan integer ka hormarnaa, kadib markaas waa inaan haddana kadib input aan dhahnaa. waxaan fahmaynaa dad typeka soo kala fahamteen. input function ayaa leenahay, kadib markaas halkaas marka waxaa leenahay prompt ayaa wax gelinaynaa geli da'daada. input functionkan waa soo gelina marka waxaa wargaraynayna saa u tijaabino. halka marka wuxuu na sugayaa oo waiting u wadaa inaan keyboard wax aan soo gelino. hadda soo kala daa 20 aan geliyo enter aan dhaho waxaa la soo daawacayaa waad soomi kartaa. marta haddaan marka la rangareeyo aan dhaho 10 haddaan geliyo oo rangareeyo waxba lima soo daawacayo. sababtoo tahay hadda anaga conditionkan if bisa joognaa. marka waxaa u baahanaa cashirkan kale else inaan ku darno. marka if statement sana loo qora marka inaa conditionka aa qorto kadibna variablekii aa samaysid waxa loo yaqaano comparison aa samaysid kadib markaas sidaas aad usoo daabacdid. marka next waxaa arkana haddana waxa loo yaqaano variable anagoo isticmaalno using hadda waxaa isticmaalna comparison isticmaalinay. marka waxaan isticmaalanaa variable condition aa isticmaalanaa. variableka ayaa condition ahaan ugu xiraynaa anagoo aan isticmaalin comparison. waxaa isticmaalna marka waxa loo yaqaano boolean hore usoo baranay waxa waaye what true and false waa. marka true waxa waaye inay wixii sax yihiin run yihiin, sidoo kale false inay false yihiin been yihiin. marka variableka waxaa sameynaa companies waxa isticmaalinaa directly si toos anagoo isticmaalna if markaas booleanka ayaa isticmaalinaa without anagoo isticmaalna waxa loo yaqaano comparison operatorska ku isbarbardhigga anagoo isticmaal. habkaas u sameynaa marka su'aal kale marka 0 ee tirada ay tahay waxa ay 0 value ka bilaawdo eber haduu yahay qiimaha ama sidoo kale uu yahay empty string maran oo waxba lagu dhex qorin oo noocan camal ah ama none ee tahay waxba aan la siin variableka. sidoo kale waxay tahay ama empty collectionska markay shaygan oo collectionka oo empty yahay ama listiga laga wadaa waxaa loo tixgelinaa inay false tahay. marka false saasay noqonaysaa marka shayga haduu eber yahay ama waxba ay ku jirin waxyaabahaas dhan waxaa false waa. waxa inta ka soo haro waxay noqonayaa true waa haduu tiro caadi tahay. haduu intaanba ahayn waxay noqonaysaa true ayay noqonaysaa. marka booleanka noocan uu shaqeeya badanaa marka hadda passwordka oo kale oo la qoraayo tusaale hadda ciwaana inaad samaysarta passwordka marka la gelinayo haddii aad godka ebera aad tiraahdo sign up ama login wuxuu ku dhahayaa lama ogolo, wuxuu kusoo saaraa calaamad guduud ah wuxuu ku leeyahay waa inaad gelisaa wax inaad gelisaa. marka waxa checking gareynaya waxa waa booleankan waaye boolean conditionskan ayaa checking gareynaya. aragna marka tusaalena marka soo qaadayna halka marka waxaa noo yaalo variable loo yaqaano is log in. qofkan log in ma yahay oo log in ma yahay qofkan sax ma tahay true ayaa siinay hawa log in aan dhahnay. marka condition marka waxaa rabnaa marka in aan anada marka shashada kale u gudbino ama fariin aan u dirno. markaas marka waxaa leenahay marka log in kan ayaa soo qaadan mujida wax marka comparison meesha ma dhigin variable comparison uma baahna sababtoo tahay asaga wuxuu yahay marka boolean asaa ahba oo horey u haysto marka laba value ama true ama false ayuu haystaa. maadaama true la siiyey kan uu haystaa marka conditionkiisa uu haystaa marka uma baahna comparison operator ma haysto marka uma baahna marka comparison operator marka kadib markaas waa la soo daawacay xalle waxaan kor bloggeena waxaan kusoo daawacaynaa welcome back ama marka la soo laabo soo noqod wanaagsan waxaan rabnaa meesha ku qori karnaa ama inaan shaashad kale aan u gudbino programka marka real program aan dhisayno. marka comparison la marka aragtina isticmaashid waxaa la isticmaalaa waxa loo yaqaano boolean ayaa la isticmaalaa. tijaabin marka programkaas uu shaqeynayo marka next kan waa usoo laabaynaa problem example 3 ayaa tagina marka example 3 ga marka haddaan fiirino example 3 ga haddaan fiirino example 3 ga marka haddaan fiirino waa boolean variable marka waa kay hadda asheen marka variable kana sameysana ma carabta u baxsan kartaa aniga waxa u baxsan log in ma yahay ha ayaan ahanay true ayaa dhigan qiimihiisa waxa waa true boolean waa qiimo caadi ma aha oo aniga aan siin sida ha iyo may wax ma qorin true ayaa isticmaal. marka waa kana marka aan rangareyna marka waxa soo baxaya fiirina waa kana marka
soo dhawaaw mar kale hadda halkan aan dhahno booleanka aan siino false hadda siino markasta xaraf capital ayuu ka bilowdaa booleanka dhahno waxba lama soo daawacayo sababtay tahay login maba ahaba qofkan login ma aha marka conditionkan ma shaqeynayo marka conditionka wuxuu shaqeynayaa oo keliya markuu yahay true ayuu yahay marka booleankana saas ayaa loo isticmaalaa boolean operatorska markaa rabto variablekan inaad isbarbar dhigtid halka habka hore oo ah comparison in la isticmaalo in variableka lasoo qaado kadibna value anaga aan barbar dhigan aan qorno iyo marka la isticmaalayo boolean in la isticmaalo booleanka inta badan marka password waxyaaba la checkin garanaya ayaa la isticmaalaa okay haddii lagu yahay marka adigoo wax comparison operator isticmaalan conditional isticmaal waa inaa boolean isticmaashaa marka waxaan arkaynaa marka how to use u isticmaalnaa else statement maxay tahay marka if waa soo aragnay else maxay tahay marka else statementiga wuxuu ku ogolaanayaa in aad fulisid waa different blogyo kala duwan sababta hadda blogga hore ee meeshan ahaa blogga hore halkan ahaa haddii shaygan halkan qiimo ama hadduu ka weynaa waayo ama la ekaa waayo waxba lama soo daawicin marka waxaa rabnaa wax kale in lasoo daawaco natiijo kale in lasoo daawaco oo dhaho waxaas hadda tusaale kale hadda waxaa noo qoran qofka 15 hadduu ka weyn yahay da'diisa 15 haday ka weyn tahay inuu soomi karo hadday ka yar tahay maxaa rabnaa marka sida daata daagin waxba noo soo daawicin inaan marka aan dhahno ma soomi karto inaan dhahno elsa u baahana marka anada blog kale saa u fulino koodka waxaa loo baahan yahay elsa oo shaqo kale ma qabato marka anada blog kale ayay qabataa markaas in la fuliyo waa kan marka syntaxka haddii conditionkan uu run noqdo asaga la qaadanaya inta lama soo gaarayo laakiin hadduu been noqdo anada elsa la isticmaalaya oo conditionkan kale ayaa la isticmaali doona oo falsada tagna marka koodkayni example 2gan aan marayna example 2 marka waxaa waaye hadda waa kale marka agekii 14 anaa qiimaha soo siiya nadaarta input aad ka dhigi karta halkan in aad soo gelisid oo sida daay tusaalaha ay tusayay marka conditionka marka age waxaan ahnay waa inuu ka weynaadaa 15 hadda 14 ku jiro marka kan ma shaqeynayo qaybtan ma la soo saari doono marka waxaa u baahan marka elsa sidan ayaa loo qoraa hadda marka hal mar idin tuso halkan koodka hore noo joogo marka elsa inaad ku dartid enter aad leedahay enter hadaad tiraahid weli waxaa ku jirtaa if blog ku jirtaa halka iska fiiri halkan elsa laguma qoro elsa waxaa rabaa inay if la sinaato back space aad leedahay tiraysaa elsa ayaa leedahay markaas elsa markaad tiraahid laba dhibcood aad leedahay wax comparison uma baahna sababta kii hore ayaa comparison kii haysta marka anada blog kala rabnaa maadaama kan uu false yahay ma la qoraayo age maadaama lama soo qoraayo elsa laba dhibcood aad leedahay kadib markaas enter aad leedahay maarata hadda wuxuu ku furayaa identification oo kii hore la siman printing hore la siman kadib marka waxaan leenahay print ayaa leenahay hadda kii hore wuxuu ahaa soonka ugu waajib waxaa leenahay markaas waxaa rabnaa qori karna waxaa leenahay weli waad yar tahay oo kala dhigi karnaa marka weli waa yar tahay ma soomi kartid waxaa rabtaa qori kartaa meeshan adiga jos iskan intaas aa dhahna marka arangarayna marka hadda automatic waxaa soo baxaya elsa ayaa lasoo qaadanaya elsa sababta kan falso ayuu noqday elsa marka waxay kuusii saacidaysaa marka in koodkan halkan laba condition aad samey kartid marka laba blog of code inaad jawaabi kartid haddii kan falso noqdo haddii run noqdo kanaa lasoo qaadan doonaa printigan blogaasaa la fulin doonaa haddii blogan marka falso noqdo waxaa u baahanta elso si programkaada uusan wax empty u noqon hadda markasta waxaa loo baahan doonaa hadda input halkaan ka dhigno input oo integer horeeyo maadaama tira lasoo gelinayo halka iska fiiri input function aan leenahay kadib waxaan leenahay halkaas koodka waxaan leenahay geli da'da leenahay markaas marka hadda fiir halkan waxaa naga sii doonaa input geli da'da ayuu leeyahay waxaan leenahay 10 haddaan nahno 20 haddaan nahno fiiri inta haddaan nahno kan horaa lasoo qaado soonka ku waajib haddaan marka la galino waxaan leenahay 10 haddaan gelino ama 7 haddaan gelino oo inta dhahno waxaa la qaadanaya kan kale weli waa yar tahay ma soomi kartid marka labada if iyo else waa saas u shaqeeya marka if waa condition statement else waxaa waaye haddii false u noqdo blogan ayaa la qaadan doonaa marka halkaasaan ku sameynaa qaybtan if iyo elsa iyo sidoo kale booleankan saddexdaas example markan waxaa usii gudbeynaa life statement
life statementiga waxaa hore usoo aragnay if iyo else ayaa soo aragnay iyo boolean. markan life statement maxay tahay marka? life statementiga waxay ku ogolaanaysaa inaad check ku samaysid multiple conditionska. ka hor wuxuu ahaa hadda else if else hadda soo qaadanay waxa waa single condition, hal condition bis oo ku check gareyn haddii da'da ay ka weyn tahay intaas waxa la soo daawaco, haddii kalena waxa kale la soo daawaco haddii been noqoto. marka haddii aan rabno condition kale inaan sii marwa dhigno waxaa u baahan marka life statement ya u baahan marka life marka waxa loo isticmaalaa multiple condition, dhowr condition ayaa loo isticmaalaa oo sequence isxiga markaas. marka si loo fuliyo marka different code block koodad kala duwan oo blockyo kala duwan si loo fuliyo ayaa waxa la isticmaalaa life. inta badan if else hal condition ayaa loogu talagalay, halka life na loogu talagalay multiple condition. marka programka la joogo oo real project la dhisayo inta badan waxa la isticmaalaa life maadaama dhowr condition hal mar la isba bardhigayo oo in dhowr block kooda in la rangareeyo ama la fuliyo la rabo. marka qaabkan tusaalahan soo qaadana haday midkaan soo qaadan age ka soo qaadan age 20 aan markan waxaan rabnaa dhowr condition waaye. haddaan fiirno if kan haddii age kan ka weyn yahay ama laga 18 waxaa code block ana soo daawacayna oo ah qof weyn ayaa tahay, you are adult ayaa dhahani, qof weyn ayaa tahay. haddana haddii age ka life halkan ka bilaabeysa mujida condition markaas meesid anada condition kale markaa rabtid if kale ma dhehaysid waxaa leedahay alive aa leedahay. markaas waxay u tahay inta elsa if sababtoo ah waxa soo qaadan if elsa soo qaadanay if kale waa markaas way soo wadataa meesha halka elsa waa loo dambaysiinayaa waxaa la soo gelinayaa marka block kale elsa maadaama if elsa ay ku xigtay waa la israaciyay marka alive ayaa la keyword ayaa la isticmaalaya. marka waxaa leenahay marka haddii condition kan oo false noqdo anada condition kan kale haddana fiiri age ka haduu ka weyn yahay ama laga 23 condition kale waxaa leenahay you are teenager ayaa leenahay. sidoo kale wadamo marka waxaa leenahay marka code block aan soo xirino elsa ayaa kusoo gabagabeynaa si uusan oo false ugu dhamaanin. marka waxaa leenahay ugu dambeyn marka labadan condition marka la soo tago oo labadan condition wax ka duwan ay yimaadaan elsa isticmaal oo ah you are a child cunug yaraata. markaas waa qof weyn, qof teenager ah oo daayar qaangaar camal ah iyo sidoo kale waxay tahay qof caruur ah. markaas marka labadan condition waaye inta way kasii badan karaan multiple condition kale oo si alive ay sii doontaa hadaa dhowr condition ay rabto inaad fiiristo. marka problemkeeni tagno life statement waa kana marka halkan furayna hadda waa kana codekeeni marka age waa variable-ka aan haysanay oo aan checking gareynay condition kiisa. marka if tan hore usoo aragnay qaabkii hore waxa kama dugna sidoo kale code block-geedana waa kana hoos yaala. marka another condition kale marka inaan ku darnaa rabno ayaa waxaa leenahay marka alive ayaa isticmaalnaa halka else ku xiri lahayn waxaa leenahay alive. markastana iska fiiri condition ka aad rabtid inaad ku dartid halkan yuusan hoos aalin waa inuu halkan hoos yaalaa. marka halkan hadaa adoo joogo enter hadaa tiraahdo waa inaa backspace tira halkaas ayaa ka bilowdaa alive age kadib condition ka hadda waan garanaynaa hadda waxaa lasoo dhaca marka you are an adult sababta tahay condition koowaad ayaa run noqday. haddii kan koowaad uu run noqdo kuwan kale ma wala aadayo, kan kale ma loo gudbaayo even though kan hadda fiiri kan koowaad hadda false ka dhigno aan dhahno 10 hadda dhahno 10 hadda dhahno 10 kama weyno mana la eka 28 kan false uu noqonaya haddana kana la imaanaya. marka hadda waxa leeyahay 10 ma ka weyn tahay mana la eg tahay 23 sidoo kale false kadib waxaa lasoo daawacay you are child ka saddexaad la aadi doona aan fiirin markaas arda you are child kan saddexaad elsa la soo daawacay labada uu noqon waaye. hadda kan dhaxaad aan fiirno isna soo shaqeynaa waxaa leenahay 24 leenahay haddaan ran galeno kan dhaxaad soo daawaci doona you are teenager. marka multiple condition marka aad inaad isticmaashid waxaa la isticmaalaa if alive ayaa la isticmaalaa elsa waa lagu soo gabagabeeyaa si marka labadan hadii la waayo waxay natiijada dhici doonto in loo sii sheego qofka userka waxaas qaaqaldan in la dhaho. marka qaabkan ay u shaqeysaa if else alive. marka example kan kale fiiriyo marka example kan waxa uu kasii yara advance gareysan yahay halka marka score ayaa sameynay score kan hadda meeshan waxa ku qoran station ayaan score ka siinay waxa meeshan meeqa mar taalo meeqa condition ayaa la dil u dhaho 1 2 3 4 condition ayaa la checking gareynaya mid kamid ayaana soo bixi doono oo match gareyn doono qiimaha halkan ah. marka hadda station aan dhahnay waxaan station oo score ka la soo qaadanay maadaama station score ka ku jiraan score kan ka weyn yahay ama la eg yahay 9 haddii score kan uu ka weyn yahay waxaa leeyahay marka AC
waa 9 wataa laga wadaa macnaheedu haddii marka scorekan uu 80 uu ka wen yahay waxaa la BC marka hadda code scoreka waxaa la sii doonaa B yaa la sii doonaa kan waa laga soo boodi doonaa kan ayaa run noqon doona kan aa lasoo daawici doonaa kuwan kalena waa laga boodi doonaa maadaama la helay resultigii loo baahnaa marka ajinga gareyno hadda waxaa lasoo daawacay your grade is B waa grade kaaga waxa waa B waa marka halkaas marka ayaa marka la fulinaya hadda meeshan input aa kalena marka inuu qofka userka uu soo gelinayo da'da inuu soo gelinayo lena scorekiisa waxaa leenahay integer maada wixii kastoo number waa inaa inputkiisa waa inaa integer ka dhigta data typekiisa si hadhow aysan string u noqon haddii kale string lama barbardhigi karo integer lama barbardhigi karo halkan integer anuu yaalo halkan adaa input bis aad tiraahid stringki iyo sidoo kale integer isbarbardhig markuu imaan kara waa laba kala yihiin laba data type kala nooc yihiin marka wixii number integer ka hormari okay marka integer markaa dhahno waxaa leenahay input function keena isticmaalnaa input function keena isticmaalnaa kadib marka waxaa leenahay enter your score align markaas score halkaas inaa ka durkisaa fiican laba dhibcood ka yara durkii okay hadda waan garayna marka hadda wuxuu naga sugaya marka inaa scoreka programka wuxuu ku jiraa waiting uu ku jiraa ma istaagayo ilaa waxa ay gelisid programka waiting uu ku sugaya halkan naga sugaya marka halkan marka wuxuu naga rabaa marka inaan gelino scorekaadii inaan gelisid markaas so aan hadda scorekan waxaa leenahay 91 waxaa soo sii doonaa a aa lasii doonaa maarta a ayaa lasoo daawa programkiina wuu dhamaaday mar kale haddana waa rangareynaa waxaa naga sugaya marka inaan haddana gelino su-aalan oo kale adaa dhahan 70 enter alayna markaas c ayaa la siiyey markaas mar kale rangareynaa saa tijaabino waxaa leenahay 40 alayna maxaa usoo bixi doonaa 40 intan 40 kuma jirto 60 aa ugu yar marka waxaa lasii doonaa files ayaa lasii doonaa haddaa marka elsadan aa ka tagno programkan wixii 40 ka yar dili waxba ma loo soo bandhigayo userka waxba ma arkaayo tan 40 ay gelino files marka example-kan isku soo daya adikane iyo example-dan dhan cashirka soo daawada sameeya markaas marka exercise kale ayaa groupkeedii soo dhigi doonaa si aad u xalisaan marka problemyadaas oo kale marka halkaas waxaa u gudbaynaa marka waxa loo yaqaana if else iyo life intaba waa fahmno condition statement waana qayb essential partiga marka programming laga joogo waa qayb muhiim ah marka qaybtan inuu qofka fahmo uuna sameeyo problemyo kala duwan maadaama program control flow uu u socdo in la xakameyn karta markaas codeka aad u mahadsantihiin marka waa inuu cashirkeena kale